waxa ugu weyn ee wadan awoodiisii maanta dunida lagu qiimeeyo waa nooca hubka uu soo saarto. Soo saarista hubkuna waa mid kamid ah mowduucyada ugu muhiimsan dunida ee maanta wadamada ay ku coloobaan ama ay ku saaxiibaan. Wadan waliba waxa uu jecel yahay in isaga hubkiisii uu noqdo hubka ugu fiican dunida si wadamada kale uga iibiyo. Nasiib daro maanta adduunka oo dhan dowlado gaar ah oo kaliya ayaa soo saara hub casri ah. Adduunka oo dhan intiisii kale cid si gaar ah hub u samaysan karta ama mowduucyada ku howlan si muuqata maanta ma jirto. Sababaha Mareykanka wadamada muslimiintu ugu soo duulay laga soo bilaabo weerarkii Afghanistan iyo Iraq iyo meelo kala duwan oo dunida kamid ah waa in wadamada hub iyo ciidan fiican oo isaga celin karaan Mareykanka in aysan lahayn. Dagaalka Ruushka iyo Ukraine, Mareykanka iyo Yurub waa ay ku dhiiran kari waayeen in Ruushka weerar ay ku qaadaan. Haddii booska Ruushka wadan kale oo yar uu weerari lahaa wadan kale, xilli hore ayaa wadanka isbahaysi cusub oo ciidamada ayaa wadanka tilaabo ka qaadi lahaa iyada oo loo marayo golaha ammaanka ee qaramada midoobay go'aan ka soo baxay. Halka waxa uu qof waliba uu ka garan karaa dunida in laga ixtiraamo wadanka haysta hub casri ah oo kaliya. Muuqaalkani waxaan ku soo qaadan doonaa noocyo hub ah oo wadamada muslimiinta ay ku xoogaysan karaan xulafo waliba oo dunida soo baxda, xitaa iskaashiga Yurub, Mareykanka iyo NATO hub aysan marnaba ka hortagi karin. Haddaba noocyada hubka ee aan muuqaalkani ku soo qaadan doono waa noocyo hub oo qiyaali ah oo maskax ahaan suurtagal ah in la sameeyo, mana aha wax internet ama buugaag aad ka heli karto. Wax ay u gaar yihiin kanaalka annaga production oo kaliya. Mala oran karaa Soomaaliya waxa ay ku aadaa oo ay iska celin kartaa xulafada NATO ama Mareykanka. Muxtamalan qof kastoo adduunka ku nool haddii su'aal noocan oo kale la weydiiyo ama la isbarbar dhigo Soomaaliya iyo wadamada waaweyn, waxa ay u badan tahay in uu qoslo. Soomaaliya iyo NATO waa dagaal natiijadiisii qof walba iska og yahay in aanay Soomaaliya lahayn rajo ay NATO kaga badbaado. Theory-ga NATO in ay guuleysan karto ayaa loo arkaa maanta dunida in uu aad u xoog badan yahay. Muuqaalkani waxaan ku soo qaadan doonaa tiknoolajiyo hub casri ah oo dowladaha awoodda leh ee maanta heerka awoodoodii iyo buunbuuninta weyn ee dunida ay ku haystaan ka dhigi karta mid aanan waxba ka jirin. Tiknoolajiyadoodii aadka u badan hub casri ah oo sida tixsiga oo kale dhammaantoodii wada baabi'in kara. Haddaba noocyada hubkani inta aanan u gudagelin ka hor waxaa muhiim ah in aan isla ogaano awoodda militariga ee maanta adduunka uu haysto inta ay la eg tahay. Waayo awoodda militariga iyo qalabka adduunka saaran oo la fahmaa waxa ay inaga caawinaysaa tiknoolajiyada adduunka saaran mid ka duwan ama mid loogaga hortagi karo in aan soo saarno. Si kooban qalabyada maanta lagu dagaalamo waxa ay u kala qaybsan yihiin 3 qaybood amaba waxa laga dagaalamaa 3 jiho, yacni xagga iyo dhimashada marka laga hadlo. Kuwa waa maraakiib oo badda ayaa gantaal laga soo tuuraa iyo badda hoosteedii oo naaquda uu dhex socdo. Qalab walba ama tiknoolajiyo ama nooca uu gantaal u wada muhiim ma aha, laakiin waxaa muhiim ah dhanka iyo baddana in weerar uu ka iman karo. 2 dhanka iyo hawaduna sida diyaaradaha, helikobtarada, dayax gacmeedyada dhulka wax ka soo jaajuusa iyo wax waliba oo la xiriiro oo qalab ciidan ama military ahaan loo adeegsada oo hawada sare ku xiran. Nooca uu ahaadaba dhanka iyo hawaduna waa meel laga dagaalamo. Tanina waa tan ugu weyn maanta ee adduunku isugu faano. Awoodda Yurub iyo Mareykanka oo dhan waxa ay ku xiran tahay maanta dayax gacmeedyada hawada sare. Dayax gacmeedyada oo qadka laga saaraa wadamo badan ayaa waxa ay ka dhigaysaa kuwa daciif ah oo waxba aanan qabsan karin. Qaybta 3aad ama jihada 3aad ee laga dagaalamo waa qaybta dagaalka dhulka, taangiyada, hubka fudfudud iyo kuwa culculus ee xagga iyo dhulka laga isticmaalo. Dhammaan gaadiidka dhulka ku socdo iyo askarta ayaa qaybtani soo hoosgali karta.
haddaba waxaan halkani ka ogaan karnaa 3 jiha oo keliya ayaa wadan loogaga imaan karaa. Muhiim ma aha waqti xaadinkani 3 jiho nooca qalab ee ka imaan karo. haddaba hubka ugu fiican ee kategoriga qiyaaliga ah ee hubka aan muuqaalkani kaga hadli doono waa ka hortaga dayax gacmeedyada iyo diyaaradaha hawada sare wax ka duqeeya. maanta si fudud shinkada Google-ka ayaa si fudud oo aanan dhib lahayn qofka wadanka uu doono ayuu hawada sare uu ka arki karaa. haddii aad Soomaaliya maapka Google-ka aad ka fiiriso meel waliba oo Soomaaliya kamid ah xerooyinka askarta halka ay ku yaaliin garoomaha inta diyaaradood ee fadhisa wadooyinka guriyaasha macluumaad badan ayuu Google-ka uu ka siinayaa. tanina qof iska shacab ah ayaa maanta haddii Google-ka Soomaaliya oo kaliya uu ka fiiriyo waa wax si firi ah uu ku ogaan karo. dowladaha waaweyn dayax gacmeedyadoodii xog baarista ee dhanka iyo militariga ay u adeegsadaan haddii mid firi ah oo googlaha oo kaliya uu leeyahay inta oo xog laga ogaan karo. dowladaha waaweyn dayax gacmeedyadoodii waliba ay ugu talagaleen in wadamada ay ku jaajuusaan intee ayuu la ekaan karaa. si live ah ayay ula socon karaan wax walba oo dhulka ka socda, heerka diyaargarowga ee wadan uu ku sugan yahay, waxyaabaha uu wadankaas soo saaristii uu ku hoolan yahay, xaaladda ciidankiisu ay ku sugan yihiin iyo waxyaabaha la midka ah oo dhan si toos ah ayay ula socon karaan. waayo Mareykanka oo kale iyo dowladaha reer galbeedka marka ay in badan dhahaan wali inooma muuqdaan ishaarooyin dagaal iyo waxyaabo lamid ah waa mar ay hawada sare ay wax ka arkaan kalana socdaan dhaqdhaqaaqa wadan uu ku sugan yahay. tanina maanta qof waliba ayaa ka banqaba. haddaba inaga hubka casriga ah ee la inoogaga baahan yahay bilowgii waa wax ka hortaga dayax gacmeedyada. inaga oo dayax gacmeedyada gantaal iyo waxyaabo lamid ah sida ruushka oo kale aanan ku tuurin waa in si guud ilayska dayax gacmeedyada oo dhan in dhool aan uga dhignaa. kaliya wadamada muslimiinta ee aanan la rabin in hawada sare laga arko ama in laga jaajuuso xaaladda ay ku sugan yihiin si uusan cadow u arkin dhaqdhaqaaqoodii waa in hawada sare wadamada oo dhan si gaar ah looga xiraa in dayax gacmeed uu dhulka oo dhan wax ka sabirto. Soomaaliya oo kale haddii aan tusaale u soo qaadano kaliya waxaa ku filan 8 qalab oo dayax gacmeedyada shucaac jahwareeriya ku furi kara, kuwaas oo ka ilaalinayo in dhulka ay wax ka arkaan. qaaradda Soomaaliya haddii aan ku fiirino dhulka maadaama hab wareeg oo kale uu u samaysan yahay waxaa qasab ah dayax gacmeedyaduna in halka ay u kala jeedaan jihooyin bilcagsi isku ah si midkood midka kale uu dhammaystiro. qalabka koowaad waxa uu ku haboon yahay bartamaha laascaanood haddii la dhigo signal jahwareeriya dayax gacmeedyada waxa uu qalabka uu ku filan yahay masaafo 3 xagal ah dhanka ilaa iyo Djibouti, dhanka ilaa iyo Yemen, ilaa dhanka iyo badda Indian Ocean-ka. suurtagal ma ay noqon karto halka uu qalabka uu ku xiran yahay jiha 3 xagal ah in hawada sare laga arko. intaa kadib xuduudda Kenya iyo Ethiopia oo min 2 xaba ah inta kale ee soo hartaana haddii xeebta dheer ee Soomaaliya lagu taxo midna dhexda wadanka laga dhigo Soomaaliya xilliga waxa ay noqonaysaa wadan wax xog istikhbaaraad ah banaanka ama hawada sare aanan lagala socon karin. qalab walba oo dayax gacmeed ah oo dowladaha reer galbeedka iyo Mareykanka hawada sare ugu xiran waxa uu heli doonaa signal madow ah ama casaan ah marka dayax gacmeedka uu isku dayo in Soomaaliya uu qabto. laga yaabay inaan isdhaahdo hagaag laakiin sidee ayaa qalab noocan oo kale lagu sameyn karaa? amaba waxaa laga yaabaa haddii sidani ay tahay maxay dowladaha reer galbeedka iyo Mareykanka ay u samaysan kar waayeen? jawaabtu waxa ay tahay dowladaha reer galbeedka iyo Mareykanka iyaga ayaaba qalab hawada sare ku soo xirtay isla qalabkoodii wax ka hor imaanayo uma aha wax iyaga faa'iido u ah. waxa ay faa'iido u yihiin dowladaha qalab iyo dayax gacmeed midna hawada sare aanan ugu xirneen. mana aha projecti ama fikir iyagu ay u baahan yihiin oo ay isku daalin karaan si ay dayax gacmeedyada uga hortagaan. laga yaabay si qarsoodi ah inay u haystaan laakiin si muuqato oo dunida la wada og yahay ma jirto projecti noocani oo kala oo dayax gacmeedyada loogaga hortagayo. laakiin waxaa jira gantaalo oo kaliya oo ruushku ugu horeeya maanta
kuwaas oo si toos ah dayax-gacmeedyada gantaal lagu dhufanayo. Laakiin inaguse Kenya waa uu ka fudud yahay, kaliya isaga oo aanan waxba gantaal aanan lagu ridin dhulka oo dhan heer uusan sabiri karin amaba signaalkiisii uusan dhulka Soomaaliya uusan ka qaadan karin, amaba shucaac signaal ah oo ka hortagayo in dayax-gacmeedyada dhulka Soomaaliya in ay sabiraan. qalab intaa oo kaliya ayaa loo baahan yahay. laakiin su'aashu haddii ay noqoto sidee ayaa lagu samayn karaa, waxa ay u fududahay dadka fiisigiska ay wax uga bilaaban yihiin. macluumaadyada qaarkoodna waa kuwo teknikaal ah oo shaqo injineernimo iyo maskax gaar ah u baahan. qiyaas iyo aragti un mooye si dhammaystiran inaga xitaa uma naqaano, maadaama waddan sidani horay u sameey ama fursad noocani oo kale oo tiknolojiyo ilaa heerkani gaarsiisan cid ku howlan maanta oo la yaqaana aysan jirin. waxaa muhiim ah in aan ogaano sida ay dayax-gacmeedyadu u shaqeeyaan. dayax-gacmeedyadu waxa ay dhulka u soo diraan signaal mawjado gaar ah oo loo yaqaano mawjadaha mikro. dadkuna signaalkani waa mid aysan maqli karin, sidoo kalena ma ay arki karaan. waana maskaxda TV-yada, raadiyada iyo xitaa taleefoonada lagu hadlo ay ku shaqeeyaan. haddii bani aadamka awood uu u lahaan lahaa microwaveska in uu maqlo sawaxan iyo cod joogto ah ayaa weerarin lahaa. laakiin qalab yar oo ku jiro aaladaha elektarooniga sida taleefoonada, raadiyayaasha iyo TV-yada ayaa mawjadaha microwaveska muuqaal ahaan sidii loo soo gudbiyey shaashada ay uga soo muuqanayaan. dayax-gacmeedyaduna dhulka waxa ay u soo diraan mawjadahani microwaveska loo yaqaano. mawjadahani kadibna iyaga ayaa dhexdoodii haddana mar kale dayax-gacmeedyada signal isku gudbinayo. waana halka qof Soomaaliya joogo live uu uga daaban karo qof geeska Ameerika jooga ama dunida dhankeedii kale. sirta ka dambeysa in waddan ilaa waddan kale live uu soo gaaro waa dayax-gacmeedka hawada sare ku xiran. marka uu dhulka signal uu ka qaaday signalka live-ka waxa uu u gudbiyay dayax-gacmeed kale ee ku aadan halka live-ka lagala socdo. sidaana qofka xogta uu mobilkiisii ama shaashada uu kala socdo waa xog hawada sare bilowgii tagtay kadibna mar kale dhulka u soo gudubtay. sidaana maanta aaladaha elektarooniga badankoodii ayaa ku shaqeeya. laakiin ilbiiqsiyo aad u yar ama daqiiqado kooban, hal ama labo ama xitaa daqiiqad wax ka yar, maanta heerka tiknolojiyada darteedii waa ay soo dibdhici karaan. sharaxaada kadib haddii aan soo koobno, inagu waxaan u baahannahay wax aan kaga hortagi karno in dhulkeenii oo dhan signal dayax-gacmeed ka imaaday in uu soo galo. aqoon badan ka sokow qofka baraatika uu raadiyo uu ku sameeyo ama TV uu ku sameeyo ayaa ugu filan wax waliba si uu dayax-gacmeedyada aragtidoodii uu isaga qariyo. haddii aad maanta TV-ga aashido si problem la'aana waxaa kuu muuqanayo kanaalada waxyaabaha ka socda. shaashada TV-guna xogta iyo waxyaabaha ku jira oo ay kuu soo gudbinayso. maadaama xog dayax-gacmeedka ka imaaday ay tahay, waxaa muhiim ah si aad dayax-gacmeedka uga tagto gurigaagii adiga oo joogo in halka practical aad ku samayso. TV-ga isaga oo kuu shidan si problem la'aana ku fakar ama isku day in aad samayso shucaac TV-ga oo shidan, muuqaalka ka daaran qalqal gelin kara ama indhool ka dhigi kara. yacni adiga oo shaashada ama TV-ga midna aadan taabanin, wax iskaagii kuu gaara haddii aad samayso TV-ga aad ku damin karto. tanina waxa ay ku suurtagali kartaa samaynta anti-microwaves wax loo yaqaano, waayo signaliskani ay helayaan wax ka xog badan oo anti ku ah. haddii lagu shido TV-ga suurtagal ma aha in uu shaqeeyo, amaba xogta bannaanka uga imaanaysa oo dhan ayaa ilbiiqsi gudaheedii kala istaagaysa. ama xitaa haddii TV-ga xogtii sidii uu soo gudbinayo waa la jahwareerin karaa. qalabyada TV-yada ku dhex jiro ee LMB loo yaqaano ee microwaveska muuqaal u bedelayo, haddii la jahwareeriyo wax walba oo dhan waa ay xalismayaan. jahwareerin marka aan ku leeyahayna si fudud, kaamiradu waa aalad maanta wax sabirta, amaba qofka mobilkiisii xitaa kaamira haddii uu ka furo muuqaal toos ah ayuu duuban karaa. laakiin haddii kaamiro iftiin aad u badan lagu shido noocyo kala duwan oo iftiin ah haddii la isku qaso, kaamirada si kasta
kastoo ay u shidan tahay ama ay wax u duubto suurtagal ma aha xilliga iftiinka la shiday darteedii in ay wax duubto amaba xitaa halka ay ku aadan tahay haddii kaamirada geed ama qof bani aadam ah ay ku aadan tahay xilliga iftiinka qofka lagu shiday darteedii wax cadaan ah ama wax madow ah ama suuradii bani aadamka oo dhan ayaa ka qansoomi karta. tanina waa maskaxda tiknoolajiyada Soomaaliya u baahan tahay si dayax-gacmeedyada aragtidoodii oo dhan la isaga qaniyo. haddii taasi lagu guuleystana dayax-gacmeedyada si kastoo dunida oo dhan ay ugu wanaagsan yihiin dhulka Soomaaliya sinaba suurtagal ma aha inay arkaan. maanta aalado badan oo microwaveska soo saara ayaa guriyaasha iska yaalo. foornooyinka korontada ku shaqeeya ee wax lagu kululaysto oo dhan waxaa ku jiro qalab yar oo soo saara microwaves kan aan rabno in aan weerarno ama in macluumaad badan aan ka helno. mawduucyada la xiriiro microwaveska signalska iyo waxyaabaha la midka haddii qofka daraasayn badan uu ku sameeyo si gaar ah mawduucyada spectrumka wax badan oo ka hortaga ayuu qofka uu qiyaali karaa in uu ka sameeyo. casharka ugu muhiimsan ee aan halkani kala soo bixi karno ayaa waxa uu yahay wadamada muslimiinta oo dhan waxa ugu horay ee looga baahan yahay haddii ay rabaan in ay la tartamaan dunida reer galbeedka waa bilowgii in dayax-gacmeedyada hawada sare inay ka hortagaan. haddii laakiin bilcagsi ay sameeyaan dayax-gacmeed ay bilaabaan in hawada sare ay u dirtaan taasi waa loogaga hormaray. waxaa qasaba meel loogaga hormaray in ay ka daba tagaan iyaga oo dibdhacay bedelkeedii waxyaabaha oo dhan ay kaga hortagi karaan in iyagu ay samaystaan sida dayax-gacmeedyada wax soo jaajuus oo dhan in hawada sare oo dhan sida guri isaga oo dhan kor laga wada xira oo kale in wadanka uu noqdo. xaqiiqdii maanta Soomaaliya iyada oo la yaso amaba lagu daro liiska ugu dambeeya ee wadamada adduunka dibdhacay tiknoolajiyo ilaa heerkani oo kale haddii ay soo saarato hubaal waxaa ah dowlado badan ayaa cabsi gelaysa sababtoo ah Mareykanka fursad dambe uma uu helay xilliga haddii tiknoolajiyadani ay shaqeyso baabuur wadada socda oo GPS isaga oo adeegsanayo halka uu ku qarxiyo amaba gantaal GPS-ka isaga oo ku hagayo meel si gaar ah in uu ku dhufto amaba sida geemka oo kale diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn ee qaarada sare laga arka dhulka oo dhan guriga la rabo si toos ah halka lagu duqeynayo waxyaabaha oo dhan ayaa waxa ay noqonayaan wax aanan shaqayn doonin. Soomaaliya marka la soo galo xilliga waxa ay noqonaysaa meel tiknoolajiyada adduunka ka shaqeysa oo dhan ee dayax-gacmeedyada ku tacalluqa wadan aanan gebi ahaantiisii mid kamid ahna aanan ku shaqaynin. waxa wadankaasi ka dhex socda cid ogaan karta amaba xitaa xogtaasi hawada sare kala socon karta maadaama aysan jiri doonin shaki badan iyo cabsi iyada oo xitaa wadanka waxba aysan yaalin. dowladaha tiknoolajiyada iyo hubka wax walba dunida ugu horeeya cabsi weyn ayay ku reebi doontaa. tiknoolajiyadani indho lagaga dhigayo dayax-gacmeedyada wadankii ku guuleysta amaba samaysta gudaha wadankaasi ama awoodda u qarsoon wadanka haddii tiknoolajiyo intaa la eg uu samaystay saadaal tiro badan oo aanan xaqiiqo ahayn ama wadanka in laga wada baqo ayay sababi kartaa. waayo wadamadu waxa ay ku tartamayaan maanta sidii hawada sare dayax-gacmeed ay ugu diran lahaayeen ama sidii diyaarado ay u samaysan lahaayeen laakiin iyagu waxyaabaha marka ay ku mashquulsan yihiin wax ka fudud oo waxyaabaha oo dhan lid ku ah haddii wadan uu samaysto dadaalka iyo juhdiga badan ee adduunka mawduucyadani hubka uu ku bixinayo ayaa waxa ay noqonayaan kuwa aanan wax ka soo qaad lahayn. maalgashiga aadka u badan ee hawada sare ee maanta dowladaha ay ku bixiyaan hal qalab oo kaliya ayaa sida ku soo ciribtirayo. waayo maanta dayax-gacmeedyada ujeedada ugu weyn ee loo diro waa in gantaalkii la rido la leexleexiyo sida geem oo kale halka la rabana lagu dhufto. laakiin mar wadanka haddii uusan qaban doonin wax signal ah ee dayax-gacmeed ama GPS ama dhanka hawada sare nooca qalab ee ahaadaba ee ka imaada signal oo dhan wadanka haddii uusan qabsan karin wadankaasi si loo duqeeyo ama wadankaasi si hawada sare looga imaada suurtagal ma ay noqon karto. waayo xilliga lama kala garan karo wadanka haddii hawada sare oo dhan aanan laga arki karin halkee ayay dad degan yihiin halkee ayaa xiro ciidana halkee ama xaaladee ayay ku sugan yihiin ciidanka wadankaasi ama halkee ayaa hadafa sida waxa ay noqonaysaa diyaarad in ay soo kacdo iyada oo hadaf aanan lahayn
meel walba oo wadanka kamid ah in ay iska bambayso waayo cagsigeedii waa bilaa hadaf diyaaraduhu maanta marka ay rabaan in wadan ay duqeeyaan bilowgii shaashada ayay ka arkaan wadooyinka guriyaasha ciidanka wadada socda baabuurta kadibna shaashada marka ay click ka siiyaan halka in uu gantaalka aado ama uusan ka leexanin waxa kala hagayo systemka hawada sare ee dayax-gacmeedyada ku xiran laakiin wadankani maadaama waxyaabo noocaasi aysan ka jirin bilaa hadaf ayuu isaga oo dhan uu noqonayaa system ama teknolojiyo noocani oo kala haddii Soomaaliya laga hirgeliyo faa'iidadeedii marka laga soo tago sidoo kale waxa ay leedahay khasaaro waxaa qasab noqon doonto xilliga teknolojiyada reer galbeedka oo dhan in wadanka Soomaaliya in laga dhaafo bangi international ah oo Soomaaliya xilliga ka shaqayn doono ama wadamada muslimiinta haddii qalab noocani oo kala ay helaan bangi international ah oo wadamada ka dhax shaqayn doona ma jiri doono kaliya bangi local ah oo iyaga ku kooban waa mid macquul ah oo ka shaqayn kara sidoo kale tusaale ahaan Soomaaliya shirkadda Hormuud waxa ay ku qasbanaan doontaa system iyada u gaar ah in ay lahaato gebi ahaanba haddii la rabo dayax-gacmeedyada in wadan laga ilaaliyo signalkoodii dayax-gacmeedyada hadda nolosheeni ay ku tiirsan tahay sida kuwani oo kale iyaguna dhulka signal uma ay soo diri karaan dayax-gacmeedyada askarnimada loo adeegsanayo iyo kuwa manfacada bani'aadamka ku jira oo dhan ayaa waxa ay noqonayaan kuwa gebigoodiiba xogta ay soo diraan aanan loo baahnayn tanina waxa ay muslimiinta ku qasbaysaa amaba ay ku dhiirigelinaysaa teknolojiyo basiida oo iyaga u gaar ah in ay sameystaan taa oo iyaga oo kaliya ay ku wada xiriiraan iyaga oo kaliya xog ay isku dhaafsadaan